السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada shabakada kadiya group fiidiyogii ka horreeyay waxaan kaga hadalnay inaanu soo gelin doono casharo graphic designer kuwaasoo aan soo bandhignay 3 program oo maanta ugu caansan graphic designka saddexdan program ardayda choose baan siinay waxaan idhi kee baad doonaysaan inuu ugu soo horeeyo ama uu noqdo ka ugu badan ee la soo gelin doono arday badan baa noogu soo jawaabtay after effect maanta waxaynu dhiganaynaa casharkii ugu horreeyay after effect computerkaaga markaad ku shubato ee aad install tiraahdo sona download garaysato waxa kuugu soo baxayaa sidan waxaad ka eegaysaa programka cracking-kiisa ama qaabka isagu waa trial programka markaad soo download garaysanaysid qaab baa jiro lagu jabiyo marka qaabka waxaad ka download garaysan kartaa ama ka helaysaa description videoga hoostiisa programka laftarkiisana waxaad ka helaysaa videoga hoostiisa waxaa kuugu qoran programka ama software iyo crack macnaheedu waa jabiye marka waad kala soo degaysaa kadibna waad ku install garaysanaysaa kadibna waad ku shubanaysaa markaad ku shubato computerkaaga ugu horeyn waxa uu kuugu soo baxayaa sidan wuxuu ku leeyahay warqadan yar ama introduction kan ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa welcome to Adobe After Effects kusoo dhawaad After Effects waxay u kala baxdaa 4 qaybood afartan qaybood waxay kala yihiin new composition oo imika ku bilow composition cusub composition waxa uu yahay waynu baran doonaa insha Allah markaynu guda galno open a project soo furo project hore oo ku diyaarsanaa ayaad wax ka doonaysaa inaad ka badbadasho waxna ku darto kadibna soo furaysaa ama effect hore oo ku diyaarsanaa helping us supporting oo taageeristii caawintii getting started imika bilow cancel baan iska odhanaynaa intan close uma baahnayn after effect sidan ayuu kuugu soo baxayaa wuxuu ka kooban yahay 7 qaybood 7dan qaybood qaybtan koowaad waxaa la yidhaahdaa project waa qaybta aad ku soo furanayso muuqaal sawiro iyo codad aad doonayso inaad wax ku darto wax ka bedesho jarjarto habayso edit garayso ayaa qaybtan lagu soo furaa anything you wanted to edit ayaa halkan lagu soo furaa qaybtan waxaa lagu soo furaa qaybtani waxaa la yidhaahdaa window preview waa qaybtayna tusaysa muuqaalkeenan aynu jarjarayno aynu habaynayno qaabka uu u ekaan doono qaybtan saddexaad iyadu waxaa la yidhaahdaa qaybtan waa qaybta tooliska aad u baahan tahay inaad isticmaasho ayaa qaybtan la soo geliyaa haddii aad doonayso inaad tool soo geliso waxaad tegaysaa qaybtan windows kadibna halkan ayaad kaga dardaraysaa tooliska aad doonayso qaybta tooliska uunbaa lagu daraa qaybtan way isku wada xidhantay laakiin 2 qaybood ayay usii kala baxdaa qaybtan isku wada xidhan waxay noqonaysaa qaybtii afraad laakiin marka lasii kala jaro qayb shanaad iyo qayb afraad bay u kala baxaysaa marka qaybta shanaad haddaynu qaybino waxay noqonaysaa timeline waa qaybta videogaaga aad ku jarjarayso isugu geynayso ku habaynayso laakiin wax effectia uma isticmaalaysid kaliya waa jarjaris isu geyn iyo kala qaadis intaasun bay u qaybsantaa timeline waad wada garanaysaan baan filayaa qaybtan haddaynu sii qaybino inkastoo isku hal qayb tahay waxaa la yidhaahdaa waa layeriski waa qaybta layeriska ee ugu muhiimsan qofku hadduu layeris macnaheeda barto taasi waxa weeyaan editinka uu baran karaa layeris weeyaan qaybtan waa qaybta layeriska lagaga daro waa qaybta compositionada ku dhigmaan waa qaybta anything of layer about layer qaybtan waxaa la yidhaahdaa tooliskani waxyaalo badan bay inoo qabtaan waxaa ku jira move toolkii hand toolkii zoom toolkii camera toolkii anchor pointkii iyo pin toolkii iyo text toolkii iyo brush toolkii all of them tooliskani waxyaalo badan bay inoo qaban doonaan marka aynu sii guda galno insha Allah waynu wada baran doonaa waxbay nagama xigaan qaybta sare menu baa la yidhaahdaa iyada waa qaybta waa wixii aanad shortcut ama aanad waxba ku garanayn inaad halkan ka tagto tusaale ahaan imika new composition haddii aan doonayo halkan ayaan kasoo furaya tusaale ahaan new layer haddii aan doonayo
halkan ayaan kasoo furayaa. Tusaale ahaan effect haddii aan ku darayo halkan aan kaga dardaraya. Animation sidoo kale view sidoo kale windows iyo helping iyo file oo ah new project, open project iyo save project iyo import project. After Effects sidan ayuu u soo baxayaa. Ugu horeyn haddaba markii aan doonayo inaan muuqaal, sawir iyo codba soo geliyo qaybtan maxaan samaynayaa? Marka ugu horeysa waxaad samaysanaysaa wax loo yaqaano organization ama management. Waxaaga waad maamulanaysaa marka ugu horeysa magacayaad ku qoraysaa. Ugu horeyn waxaad samaynaysaa foldaro. Foldaradaas waxay kuu saamaxayaan inaanad mar dhow isku khalkhalin haddii aad effect weyn samaynayso. Tusaale ahaan animation weyn ama slideshowyo badan. Isku khalkhali maysid. Wixii waad garanaysaa ilaa way ku management garaysan yihiin ama way ku toosan yihiin. Waxay kuu saamaxaysaa inaad wixii kala fahanto. Haddii aad qof u dirayso ood ku leedahay effectigaygan eeg, qofkii wuu iska fahmaya markiiba. Laakiin haddii aanad wax magacaba ku qoran qofku ma fahmayo. Ugu horeyn markii aad doonayso inaad project samayso waxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso new folder. Folderka markii aad samayso waxaad ku qoraysaa sawiro. Muuqaal baad ku qoraysaa. Muuqaal ma ku qortay saasaad u doonaysaa. Haddii aad folder kale oo sawiro ah doonaysana sidii sileeg ayaad u samaynaysaa. Haddii aad doonayso sawir codada sidii sileeg ayaad u samaynaysaa. New right click baad siinaysaa kadibna maxaad odhanaysaa new folder. Folderkii baad dul tegaysaa. Folderka inta aanad dul tegin waxaad samaynaysaa hababkan aan kuu soo sheegi doono insha Allah. Habka ugu horeeya marka ugu horeysa waxaad samaynaysaa markii aad doonayso inaad project soo furato ama video ama codad ama muuqaalo. Waxaad samaynaysaa 3 hab baa loo soo furaa. 3 hab ayaa loo soo furaa. Habka koowaad waxa weeyaan adigoo double click siiya halkan. Double click markaad siiso waad soo furanaysaa muuqaalkaagii. Kadib select baa soo odhanaysaa import baa soo odhanaysaa. Muuqaalkaagii halkaasuu imanaya. Habka labaad aynu iska delete garayno. Habka labaad waa adigoo right click idhaahda kadibna import taga kadibna file taga kadibna select soo idhaahda kadibna import soo idhaahda. Habka saddexaad delete aynu nidhaahno. Habka saddexaad waa adigoo file taga kadibna import taga kadibna file taga kadibna select soo idhaahda ama soo doorta kadibna import soo idhaahda. 3dan hab ayaa loo soo geliyaa projectkaaga si aad mar dhow wax uga badbadasho ama wax ugu darto. Kadibna muuqaalkii baad soo jiidaysaa. Waxaad keenaysaa folderkii ay ku qornayd muuqaalo. Folderkii ay ku qornayd muuqaalo ayaad toos u geynaysaa. U joogiba. Okay. Folderkii ay ku qornayd muuqaalo. Sidii sileeg ayaad u samaynaysaa folder kale oo sawiraan. Sidii sileeg ayaad u samaynaysaa folder codada. Intaas ayuu casharkeenu ku joogaa. Insha Allah waxaan filayaa inaad fahantay introduction-ka hordhaca After Effects. Waxaan kuu rajeynayaa inaad casharka dambe ee xigana sidaas sileeg u fahmi doontid insha Allah si aad u noqoto qof ku takhasusay After Effects. Waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe garayso, videoga like saarto, wixii faallaa commentiga noogu soo qorto, videogana aad share garayso si ay u daawadaan dad badan oo xiiseynaya graphic design-ka especially programkan After Effects loo yaqaano. Ma noqon doono programkan programkii koowaad. Waxaynu soo sheegnay inuu noqon doono programka saddexaad. Waxaynu doonaynay marka hore inaan maalinba cashar program kale aan soo gelino laakiinse ardaydu waxayna yidhaahdeen kan nagu soo horeysiiya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.